السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال مركب حسبيننا إن شاء الله تلولستينا waxaa bilaabana horta hore inaan add tools aan sameyn data ina halkan ka soo qaadno waan halkan aan keenno already hadda wax shaqeynaa ma jiro insha Allah ka shaqeysiinayna I hope markii aan sameynayna insha Allah soo kala dhex bartamaha kora jeen doona okay korkaas jeen doona marka la socdo hadda waa la idmo marka kooda xarabna inaan data ka soo qaadno input data loo soo qaado already qayb basic kaas ku soo baranay balse hadda tartaan ku celinaa fiirso data marka waxa weeyaan waxa uu soo qaadi jirnay just on change input imaanaysa input waa kana soo jeeda marka input ka soo soo sameeyay waxaan dhan waa jalas kiisi wixii sira waay okay jida so input waa kana marka xasameynaysa wax la yaqaan on change waxa marka inputaas marka wax lagu qoro kale iyo markii wax laga bedelay yani xaraf hadii lagu qoro xaraf la yitiro waxaas dhan waa marka on change so on change marka aan kadib waxa ka soo qaadi jirnay data ay ka soo qaadi jirnay so it's so easy meeshan ayaa isleeyahay meesha ugu fudud waa so marka aan dhigi jirnay tool page ya sameynayna kadib meesha aan la soo page jiray event so event wuxuu noqonaa dabcan wax walba noqonaa kadib waxa target jiray jirnay input kadibna values kiisa waxa weeyaan event.target.value that means waxa qiimaha ku dhex qoranaya marka aan la soo sheego dabcan hadda basics soo qaado please meesha aan soo faantay mar walbana ku celcelinaa basics sudayna soo qaado course mar walba waa free hadda ka qaadanaysid website-ka ama hadda ka qaadanaysid dabcan YouTube-ka so in isbatiina furan doona si aan mar walba isku tijaabino waxyaalo badan okay asla socona sama okay so intaana kala sameyso easily insha Allah wax walba aragtaa so haddii aad soo console gareey saasan ka wadi dabcan aan dhaho console.log markii hore soo qaadanay balse waxa rabaa inaan isla socono so marka hadda wax ku qorayso ujeedid inputkii hadda wax ka tiro waxaas dhan waa helaya so ujeed so input waa ka marka datadiisa isbeel marka waxa u dhiibinaynaa datadan state u dhiibinaynaa waxaan leenahay set to do state kaas ma sameeyay maya hadda sameeyna marka functionkiisa laakiin wuxuu noqonayaa state kaas set to do waxaan sameynaa marka hadda sameynaa waxaan dhihi doonaa to do function jiro wuxuu noqonaa set to do kadib use state wuxuu ku bilaabanaa marka end okay marka intaas waxa ku haysanaa mid walba yani datada waxa ku haysanaa to do listiyaas soo waa saas ku haysanaa kadib datada xarabna in lagu dhex daro ay xilliga marka la sameeyay iyo incomplete yahay iyo inuu completed uusan ahayn because completed waxa ku xaqiijinaynaa in hadhow completed aan ka dhigi karno iyo wixii lamida marka waxa sameynaynaa function iyo sidoo kale waxa markii la qoro hore in page kale soo muujiyo maro already waa ka soo muujin karnaa haddaa fiirsid meesha to do list waa kana soo meeshan waa len chapter react case ku qoran tahay haddaa dho to do waa la soo muujinaa fiiriya waxa qori doonaa read box muujida already ciyaana la soo muujinaa so hore u soo qaadanay balse waxa rabnaa markii aan add in la soo muujiyo see ku dhacaysaa so hal mar soo celino qoraalkan waxa ku dhacaysaa inaa function aan sameeyno soo kale button add on click aan ku xirno marka function ka sameeynayna waxa noqonaysaa marka add to do list waxaan marka add to do list waxa dhihi doonaa consistency waxa dhihi doonaa add to do list okay kadib waxaa sameynayaa tool page then function caadi waa sameyn kartaa tool page function kana sameyn kartaa so adoo marka arrow aan isticmaalay so inta marka sameyno to do list walba la sameynayo consistency new to do list walba wuxuu noqonaa marka sidan wuxuu yeelanaa IDsna waxa waaye xilliga marka to do list la sameeyay waxaan leenahay date.now xilliga marka to do list la sameeyay kadib wuxuu kaloo yeelanaa to do list datada yeelanaa to do listna wuxuu noqonaa dabcan to do list aan uu noqonayaa oo to do list naftirkiisa sidoo kale wuxuu markaas qaadan doonaa completed ka marka waxa ku bilaabanaa false inuu yahay completed waxa marka datada marka to do list marka horo
in to do list aan dhameeyay aan to do list aan sameeyay iyo inaan sameeyno marka kuwaad waxa marka ma sameeyno markaas la qorto Soomaa hadhow marka sida uu update gareynayna insha Allah waa baraneynaa kadib waxa weeyaan waxaan sameysanaynaa to do list-yadan dhan meelaha ka soo muujinayno marka waxa yani meelaha ku kaydsanayno marka waxa sameynaa for instance waxaan sameyn doonaa to do lists kadibna waxaan dhihi doonaa set to dos okay dhammaan to do list-yada dhan ayaan ku kaydinaynaa marka useteeda noqonaa balse wuxuu noqonaa mid ku bilowda marka array oo kuwo badan weeyaan dabcan so waxaan dhehnaa marka new to do list walba meeshaan la gelinaysa waxaan dhehaysaa set to dos okay how do you set to dos how do you marka new to do list meesha la socaya waxba bedeli doonaa okay meesha wax yar ka bedeli doonaa ila soco marka adka waxaan rabaa in la waco function markii button kali loo siiyo easy la iska fududahay kaliya waxaad dhehaysaa on click copy so meesha marka always waxa weeyaan hadaa functionka already asaa u soo sameysay functionka meesha ay soo baa qoraysaa waxaad dhihi kartaa add to do list easily sidaas samayn kartaa because functionka adaa callback ahaan u soo sameeyo wax walba so marka waxaan sameynaynaa waxaan ku qoranaynaa read photos kala halka ku qoranaynaa let me paste caadi si qorano marka waxaan dhehnaa read photos kadib add hal mar soo daawacna marka yani waxa page aan ka soo muujinayno ma jirto soo daawacaynaa waa ka soo muujinaynaa balse hadda right now ka hadlaa so add marka waxaa dhacayso in marka la sameeyo to do list soo kala read photos balse isla halkii la soo celcelinaa ujeeda kuwa badan ma la sameynayo mar si loo sameeyo waxa la sameynaa meeshaan array ahaan sameey kadib arrays new to do list kan kuwii horena aaw kuwii hore meesha muu aalo mujida halka habisa la soo celinaa mujida 0 mid kuwaad lebis kii la soo celinaya kuwa kale in la sameeyo la rabaa mar si loo sameeyo waxa la sameey jiray hadaa taqaanaan to dos to do list-yadii hore ayaa meesha ku haysanaysaa waxaad dhehaysaa to dos comma adoo markaa ka hormarinayo saddexdaas dhibic okay so that means waxa waaye to do list-yadii hore waxaa ku qoran to do list yaa noogu qoran hadda to do list-yadii hore meesha ay yaalaan waxaad ku soo dartaa to do list cusub hadda hadaa addaho waa ujeedaa laba u noqday array mujeedaa haddaa hal bisu kusoo laalaabanaya hadda laba u noqday mujeedaa so laba xab uu noqday mid kale haddaa addaho 3 xab uu noqonayaa mujeedaa so sida loo kala horumarinayna adaa meeshaan ku sheegaya dabcan hadda saa ujeedid waxaa dhacaysa markaa mid aa sameeyo new to do list hadaa sameeyo waxaa la keenayaa qaybta hoosaa la keenaya hadhow aday kugu xiran tahay kan hadda saa u kala horumarisay ku xiran tahay so haddaa dhow tusaale kale haddaa dhow tusaale first midka koowaad aa qoro addaho waxaa arkaysaa in markaa naloo saara midkii hadda aa qoray second haddaa qoro midkii labaada naloo saara balse midka labaad waxaa dhacayso in la jeeyay qaybta hoose kor haddaa arti inaad keentidna meeshaanay ku xiran tahay qaabka u kala hormarisid okay so intaan samee marka sidoo kale marka wax qoro waxaa la rabaa meeshaas in la tirtiro waxaa dhinaca set to do meeshaas marka empty kededa dhicnaa oo haddaa mar addaho meesha in la tirtiraa rabaa set to do soma okay si loo tirtiro value marka waxaa ka dhigaysaa to do asa value ka dhigaysaa waxaa dhigaysaa value wuxuu noqonaa to do hadda marka addaho marka waxaa waaye wixii meesha ku qoran waa la tirtiri doonaa waxbaa meesha ku qoran adaa dhahay waa laga tirtiri doonaa saa ujeed marka to do list qaabkaasaa loo sameeyaa laakiin pageka maa kasoo muujino dabcan hadda kasoo muujinaynaa lasi pageka marka waa kuwaana laga soo muujinaa gaar ahaan listias dabcan inaa shaashada weyneeyaa fiican waxaa laga soo muujinaa listia marka si loo soo muujiyo dabcan isticmaali jirnay mar waliba maapkaas isticmaali jirnay la socday marka waxaa lagu maap gareynaa li-da lagu maap gareynaa marka waxaan dhehnaa to do lists waana intay ku jiraan waa array waxaan dhehnaa marka dot map areas waa aragtin soma waa aragtin dabcan waa kana console ku sameynaya kadib waxaan sameynaynaa already to do mid walba soo qaadanayna waxaan dhehnaa to do kadib callback isla bracketka qor oo rounded ka haddii kale waxaa weeyaan return iyo waxyaalaha isku weydiinaa hal mar intaana map aan ku sameynin ay tuso consoleka sidoo kale kan isto minaha screenka okay so haddaa fiirsid aadhow tusaale kale to do list addaadhow datada marka waxaa dhacaysa wuxuu wataa datada haddaa fiirsid mid walba wuxuu wataa 3 shay
saddexdaas shay wax kale maahan waxaa waa completed id iyo to do waa marka datada waxay ku dhex jirto qoraalka caadi meesha ku dhex jiro waa kan okay taa marka ku xisaabtan waxaan sameynaa markii la soco waxaan sameynaya meeshaan waxaan ku sameynaa inaan map ku sameeyo kadib mid waliba marka wuxuu wadan doonaa saddexda shay hadda ay sheeday dabcan so waxaan sameynaa marka midna conditional isticmaali doonaa midna meeshan kasoo muujin doonaa midna waxaan isticmaali doonaa inaa id ku kala saarno oo hadhow deletka iyo updateka labadaba aan isticmaalno marka meeshaan lane reactor waxaan u bedeleynaa jsx kadib waxaan leenahay to do listias to do as not to do okay datana waa u bedeli kartaa saa u fahantis okay datada naftirkeeda waa qoraalka naftirkiisa so hadda haddaa sameeya ujeeda qoraalka naftirkiisa laga soo muujiyey hadda mid kale aa sameeyo hadhow new to do list kale loo sameynaya saa ujeeda marka easily hadda waa sameynay soo ma haddaa mid kale aa sameyno meesha lasoo dhigaa dabcan new waa lasoo hormarnaa haddaa arti in lahoos marayna meeshaani ku xiran tahay okay so meeshaani ku xiran tahay kana meesha waxaa sameyn kartaa intaas soo mari kartaa okay hadda intaa waa isla fahnay balse waxaa jirta cilad yar oo ah anoona waxba ku qoran haddaa addaho waxa weeyaan uu kusoo darsama mujida so waxaan sameyn doonaa if not if haddii aan waxba kusoo darin waxaan leenaha if not to do hadduusan meesha ku jirin waxaa weeyaan hadduu empty limit yahay dhihi kartaa if not waa dhihi kartaa I think labadaba isticmaali kartaa balse waxaan leenahay if not to do hadduusan to do meesha hadduu ku jiro dheh true inaa isticmaashaa fudud if to do hadduu ku jiro intaana la sameeya dhehaysaa oo to do list yaa lasoo qaada lagu daro kadibna wixii meesha yaalaa laga deleeda waxaa dhehaysa fiiri haddaa addaho laguma soo daraa balse haddaa meesha aadto space aa siiya fiiriya adho lagu soo daraa mujida so space kana saa meesha ugu bixiso waxaa la isticmaalaa trim waxa la yaqaano waxaa dhehaysaa dot trim space taa ka bixi space kana xisaabin dabcan space ka kuma jiraa leedahay marka waxaa loogu tala jiray remove the leading and trailing white space and line termination directories from string okay spaceskii waxyaalahaas dhan oo markaa ka tirsanaa hadda daa space aa sii xitaa hadhow xitaa laguma soo daraa ilaa xaraf waxba waxaan ka qoro okay kadib marka datada oo lagu soo daraya marka intaa yar condition yar waaye aa u baahneen kadib waxaan rabnaa inaan sameyno qaybta colorska oo isbedelayo qaybtaas maxaa marka waa qaybta markii keli loo siiyo wuxuu isku bedelaa completed iyo wuxuu isku bedelaa uncompleted sidoo kale waxaan sameynaynaa qaybtan oo deletekana waan sameynaynaa balse hadda waxaan noo dhow inaan sameyno qaybta local storage hadda waxaan ku xijinaynaa insha allah qaybta local storage marka waxaa waaye marka koowaad in la keediyo qoraalka waxaa lagu keedinayaa qaybtan loo yaqaano local storage right click application qaybtan loo yaqaano kadibna local storage inta ayaa lagu keedinaya saa ujeedaan marka hadhuu refresh qofka hadduu dhaho qoraalka uu usoo laabanayaa so meeshaan laysoo akrinayo qoraalka so intana waxaan rabnaa sidoo kale inaan sameyno so si aan u sameyno iska fududahay waxaan leenahay horta hore store to local storage okay local storage marka saa u keedisid waxaan sameynaysaa mar walba waxaan isticmaalaynaa use effect waxaa waaye markii wax laga bedelabo waxaa markaa dependency aa u dhiganaa to-doskeena dependency u dhiganaa so to-doskeena markii wax laga bedelaba wuxuu ku keedinayaa isbedelkaas dhacay local storage marka waxaan isticmaalaynaa use effect marka already qaybta basicsku waa inaa soo qaadatay mar walba kugu celinaa chorusku waa free isku day inaa soo qaadatid okay marka waxaan sameynaynaa use effect yaraan sameysanaynaa qaybtan dependency waxaa u dhiganaa marka dependency wax walba soo sharaxnay to-do listiyada ayaan dependency ugu dhiganaa so to-do listiyada hadduu wax iska bedelo waxaan sameynaynaa oo to-do listida meesha uu yaalo conditionkaas muhiim waaye waxaan leeyahnaa to-do list uu meesha uu sii yaalo to-do listiga dot length uu kooban yahay cabirado inta xaba ay yihiin uu kooban yahay 0 oo to-do list hadduusan meesha oolin waxba ha keedinin ka wadaa so hadhow waxaan sameynaynaa marka local storage waxaa la dhahaa marka set item wuxuu sameynaya marka local storage aada wax ku keedinayaa set the value of the pair identified by the key value يعني identified key to value pair waxaa waa laba laga wadaa oo key iyo value yeelanaya key value waxaa waaye key waa magaca u sameynayno value waa qiimaha keedinayno create wuxuu sameynaya marka new key value sameynaya pairs if none existed for the key previously laakiin haddii keydaas oosan hore markaas ugu jirin markay la soco marka set item aan dhehnaa kadib keyda waxaa waa marka magaca loo bixinaya waa
كده حاول ما جعله بحنا هذا حاول بحنا to do's كده حالنا وكذيننا حكذيننا to do list كذيننا so to do list هذا حاول بدل سامر كذينه شيء stringify أو بدل ساحدة string أو بدل ساحدة JSON dot stringify كده بحاجة لنا سديتدان أو مركزي ديتا حاجة لنا سا أو to do list so هذا مركا نحال سمية مركا JavaScript أنا أو بدشي JSON أو stringify استعمال شيء dot stringify وحاول بدشي واحد يقان JavaScript object notation سو automation so JavaScript object notation مركا أو بدشي هذا مركا سوق هذا نيشنا وحاول أسوي بدل يعني قراءة عادية نحسب على سد parts واحد يقان وانا انتصار طبعا مركا بيت كسو مجرنا أوكي so هذا inspect أنا هنا راجل inspect application كله فنا ماشي حال سو جلين دونا قراءة كاميشان كترنا كعاد لسه إن شاء الله حدنا to do list أدى تادو من جدا حلو به to do's وحلو صوتر ميت كميتا من جدا هذا ميت لا صوتر حدنا دونا to do list تو هذا ولو صوتر يا يدنا من جدا so حكو حرين ده مركي واحد ماشان to do list استعجب بتشي كو حرين ده so هذا refresh هذا هو قراءة كو بحا بل because like بلسي ماشان ما تبهن so ماشان مركي حارن وحنا ترى وين أكسو آخر السنة iyadana waxay isticmaalaysaa marka isla intaanoo kale isticmaalaysaa waxyar la ugu duwan tahay so marka get through lists from the local storage marka waxaan rabnaa through lists inaad kasoo baxsano so waxaa muhiim iyadana inaad kasoo bixi jirto through lists marka waxaan leenahay constant through storage through list aan keydsanay is equal marka waxaan isticmaalayna sartan hadda inoo muhiim ah sartan noo soo qobo sartan marka waxaa waaye local storage dot get ayaa u bedelaysaa meeshan get itemka wuxuu ku siinaa marka yani datadii ku siinaa datada kadib marka magaceeda sheegaysaa marka intaan kale uma baahnid balse marka local storage datada kasoo akhrisanaa waxaa u bedeli doonaa caadi qoraal waxaa bedelaynaa mid caadi u bedelinaa marka waxaan leenahay JSON dot parse ayaa dheeraa JSON dot parse datada marka intaa waaye okay so datada marka waxaa u bedelnay convert JSON ka waxaa u bedelnay object caadi ayaa u bedelnay okay so object caadi ayaa u bedelnay marka datada lasoo akhrisanayna waa datada local storage kan ku jirto okay marka dependency ma u baahanahay may dependency u baad mar walba refresh qofku wado already waa inaa heli karnaa marka hal mar console dheeraa waxaan leenahay storage to do list storage dhahay hataa console aan ka fiirino waxaa arkaynaa to do list in la siin doono mujida waa kana to do list okay to do list 1 iyo to do list 2 hada page ka soo muujinayna waxaa loo baahan yahay meesha console inaan u bedelno set to do bisa u bedelena already page kale soo muujinaya la soco da refresh adaho page kale soo muujinaya because datadan hadda to do list ka ah waxa u dhiibnay set to do list na waxa uu keedana to do list na waa kana to do list na waa kuwa aan page ka soo muujinayno dabcan okay maybe inaad ku wareerta laga yaaba maybe inaad si fiican u fahantaa laga yaaba balse hadda JavaScript soo fahantay basicsna aad soo fahantay runaantii waxaanu kale ku wareeraysid qaybta hore adaa fahantay oo add to do list-ka qaybta local storage-na waa fahantay dabcan waana ku celinaa hal mar ildees waxaa isticmaalnay state-kan oo to do iyo set to do set to do waxay noo sameynayeen input-kan ay data noo soo qaadayeen oo on change markaa dhahno set to do wuxuu noo soo qaaday datada ku dhex jirta dabcan to do waa ku keedinaynaa oo to do aan ay ku keedinayna so to do as aan ku keedinayno ma xume to do as maxaad kaloo ku sameynay value qiimaha xatirina to do ayaa tirinay so to do as hadhow marka waxaan ku dhex dareynaa maadaama qiimaha to do list qofka uu qoranayo uu ka mid yahay waxaan ku dhex dareynaa to do list-yana saddexda shay aan keedinayno oo ah id to do list-yaas inuu completed u yahay true and false iyo sidoo kale datada naftirkeeda oo ah to do one so marka waxaa isticmaalay function oo button-kan aan ka wacanay on click markaasina add to do list function-ka waxaa sameynay wautiin iftaan dabcan iftaan ay la socotaan iftaan waxaan ku xaqiijinay inaa qofka wax uu soo qoray oo to do one waa maxay to do one waa value qiimaha input-ka waaye oo input-kaas waxaan dhahnay qofka ma soo qoray input ma ka heenaa oo input wax ma ku soo qoray dot trim-kana waxaa waaye spacita maahane wax caadi ma soo qoray
so uu soo qarso maahan kadib waxaa sameynay consistency new to do list aad sameyn to do list walba waxaa u sameynay marka id oo ah to do list yaas xilli la sameeyay to do naftarkiisa oo qoraalka ah iyo completed in to do list yaan oo qofka uu sameystay iyo inuu sameynin kadib waxaa sameynay set to do stagekan kale muxuu yahay marka stagekan kale waxaa waaye waa kan page aad kasoo muujin lahayd kan hadda data aad kusoo qaadanay kanna page aad kasoo muujinaynaa dabcan so array ku bilaabnay stageka kadib set to do's iyo to do list aa u bixinay set to do's aa dhahnay kadib new to do list kadibna dotka waa maxay because waxaan rabnaa in dhammaantooda meesha laga soo muujiyo haddii aan ka reebo fiiriya waan mid aa sameeyey la socoyaa labadan hadda waxaa lagu bedelaa midka hadda aa sameeyey fiiri mujeda mar saas la maro waxaa la rabaa wixii horena inuu meesha yaalo marka waxaan dhahnay comma dot marka wixii hore waa inuu meesha yaala meesha uu yaalaa to do listiyadii hore waa inay meesha ay yaalaan saasaa laga wadaa intaa waa fahmaysaana filaa kadib set to do waa wax kale maahan waa input inaa clear aan ka dhigno oo hadda wax qoro input ku jirta sf meesha uu ku qoran yahay marka waxaan rabnaa in laga tiro waxaan dhahnaa markaa set to do empty credit oo hadda wax kale laga qoro waa laga tirtiraa wixii meesha mujida so kadib waxaa sameynay local storage ku keedinay waxaa kaliya la isticmaalaya set item kadib magaca loo bixinaa datada marka waxaa laga dhigaa json datadana waa kunaa so intaas kaliya waaye array naftigiisa keedinay isla arrayga markaa soo akhrisanay to do list storage kadibna waxaa u bedelinay object javascript object kadibna datada marka qaabkan loo soo akhriyaa local storage get item kadibna magaca aad ku keedisay oo set item markaa dhigaysa magacan ayaa meesha lagu qoraa datada marka already waa helaysaa meeshan dot parsian waxaa waaye ina object javascript object aa u bedelinay kadib datadii aan keedin oo dhan waxaa markaa aan siinaynaa set to do scan because markii aan add hobo mar walba waxaa ku keedinoonaa local storage taas waa mar walba waxaan siinaynaa set to do scan marka intaas yala sameynaya waxaan rajeynaa inaad si fiican fahanteen aa la socon doontaa sidoo kale projectyo badan oo sameyn doonaa video like saar asxaabta la share garay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu